calaamadahan haddii aad isku aragto waxaad u baahan tahay guur waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan u guursataa. kow waxaad jeceshahay haddii aad wiil tahay gabar walba inaad nambarka ka qorato oo wacdo, kugumana filna hal gabar oo keliya inaad xiriir la yeelato. labo gabadha wiil walba oo soo raadsada ama xiriir u soo bandhigta ka aqbasha oo xiriirada badan dhaqso u guurso walaal waa lagu hayaaye. saddex caajis, daal, firfircooni la'aan ayaad dareemaysaa marka aad joogto goobaha waxbarashada ama shaqada, guurso walaal waa lagu hayaaye. afar dhafar joogta ah ayaad leedahay, guurso walaal waa lagu hayaaye. shan gabar walba oo socota waad ka heshaa wiilow, naag walba waa naagtaada wayna ku soo jiidataa gabar walba ood aragtaa. lix wiil walba oo aad aragto wuu ku soo jiitaa waadna ka heshaa, naftaaduna waxay dareemaysaa in kii aad raadinaysay uu kan yahay. toddobo fikir joogta ah ayaad leedahay, waxaad jeceshahay mararka qaarkood inaad keliga ahaato. siddeed deriska inaad daaqadaha ka eegto ayaad jeceshahay haddii aad awooddo, xilli kastana dadka dhanba waad ka shakisan tahay, guurso walaal waa lagu hayaaye. haddaba daawade runta sheeg, adigu ma isku aragtay calaamadahan? haddii aad isku aragtay fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan u guurso. haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh, sidoo kalena asxaabtaada. masiixi 60 sano soomayey allah soo hanuuniyey jumayl miikaa'il cabdallah oo abu marwaan lagu neynaasiyey waa falastiini masiixi ah oo haddana muddo 60 sano ah aanu mar keliya dhaafin soonka bisha ramadaan. 60 sano ka hor maalin ciid soonfur oo loo damaashaadayo ayaa aafadiisa oo sadkeedu aanu buuxsamin ay foolatay. waxay ahayd fool ku dheeraatay oo marar badan nolosheedu madow gashay. kadib waxaa u dhashay wiilkoodii curadka ahaa oo u bixiyey marwaan oo 7 bilood ku dhashay ayaa waxa uu ahaa mid ku dhashay caafimaad darro, xaaladiisuna ay aad u adag tahay. cisbitaalka ayaa la dhigay, muddo ayuu ku jiray si ay xaaladiisa dhaqaatiirtu uga warhayso, waxaana uu ku jiray quraarada ama dhalada carruurta lagu koriyo. jumayl markii uu dul istaagay xaalka liita ee ilmihiisa ee ay xaaskiisu dhibaatada ka soo martay ayaa uu samada gacmaha u taagay duco. waxa aanu nidar ku maray haddii ilaaha islaamku uu ilmahaasi badbaadiyo dhibaatadana ka leexiyo in uu sanadka soo socda muslimiinta la soomi doono bisha ramadaan. marwaan yare waa uu bogsaday, jumaylna nadarkii waa uu oofiyey oo sanadkii xigay waxa uu la soomay muslimiinta. laakiin sanadkaasi kuma uusan joojin, ilaa iyo hadda oo 60 sano laga joogo muslimiinta ayuu bisha ramadaan la soomaa. keligii ma aha ee wiilkiisa marwaan oo markii uu qisada uga sheekeeyey isna 24kii sano ee ugu dambeysay ayuu soomayey. 10 sano ka hor waxaa iyaduna soonka bilowday inanta uu awowga u yahay ee uu dhalay marwaankii soonka jumayl sababta u ahaa. sanadkanna waxaa ku soo biirtay gabadha ay walaashiis dhashay oo la soontay. jumayl inkastoo caafimaadkiisa aanu fiicnayn haddana waxa uu ku adkaysanayaa inuu soomo, isagoo oo weliba ku doodaya in soonku uu yahay dabiib ruuxaani ah oo xanuuno badan lagaga bogsanayo. alle islaamka ha ku soo hanuuniyo jumayl iyo qoyskiisa. haddii uu ku soo gaaray muuqaalkan like dheh,